markabkan aad arkaysaan waxa uu ku sugan yahay gudaha badda Soomaaliya waxa lagu magacaabaa Galizia wuxuu ka mid yahay maraakiibta dagaalka ay leeyihiin howlgalka ciidamada badda ee Midowga Yurub gaar ahaan waa markab dagaal oo ka socda dalka Spain ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta markabka dushiisa kula kulmay safiirka Midowga Yurub ee saraakiisha ugu sareysa howlgalka ee ku sugan xeebaha Soomaaliya waxana ay ka wada hadleen halka uu marayo howlgalka la dagaalanka burcadbadeeda ee sidii loo dardargelin lahaa dadaalada looga hortagayo burcadbadeeda matalaya dawladda Soomaaliya waxaan ka codsaday European Unionka inay si dardargeliyaan dadaaladooda looga hortagayo burcadbadeedku ma ahan dhaqan Soomaaliyeed mana aqbalayno in maraakiibta martabadaheena ay weeraraan burcadbadeed maraakiibta hadda taalla iyo ciidamada saaran oo ilaaliya waxaan ka codsanay in la kordhiyo sidoo kale waxaan ka codsanay in xoog la saaro in aad loo kormeero badaha laguna kormeero maraakiib iyo diyaaradaba waan isla soo qaadnay waxaan ku ballanay inaan ka sii wada shaqeyno sidoo kale waxaan ka wada hadalnay sidii aan uga shaqeyn lahayn sidii baddeena looga ilaalin lahaa kalluumaysiga tuugada ah iyadana waxaan isla garanay inaan ka yeelano wada xaajood aan ku sii dhab qaadno sidii loo ilaalin lahaa xoolaha ummadda Soomaaliyeed ugu dambeyntii waxaan ka wada hadalnay shaqada ay wada qabtaan Midowga Yurub iyo dawladda Soomaaliya sidii looga dhigi lahaa shaqooyin muuqda loona xoojin lahaa sidii looga shaqeyn lahaa shaqo abuur dib u dhiska dalka iyo wada shaqeyn waarta tusaale ahaan sidii baddeena ay u ilaalin lahaayeen ciidamada badda Soomaaliyeed sidii aan uga shaqeyn lahayn in burcadbadeeda annagu aan isaga difaaci lahayn tababar iyo qalabna loo siin lahaa ciidamadeena safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya Francois Lorenza ayaa sheegtay in Midowga Yurub ay sii wadayaan howlgalka ka dhanka ah burcadbadeeda Soomaaliya reinvigorating the alliance between Somalia and the international community taliyaha howlgalka Midowga Yurub ee la dagaalanka burcadbadeeda Major General Roberto Mogwan ayaa sheegay in intii u dhaxaysay 2012 ilaa 2016 inay hoos u dhaceen weerarada iyo afduubka ay geysan jireen kooxaha burcadbadeeda kadib markii ay baahiyeen awoodda howlgalkooda hase ahaatee waxa uu sheegay in 3 bil ee ugu dambeysay ay soo laabteen oo ay isku dayeen inay weeraraan maraakiibta ganacsiga iyo kuwa sida gargaarka waxana uu sheegay inay xoogga saarayaan hadda sidii awoodda burcadbadeeda loo wiiqi lahaa with key member states with all member states over the next 6 months is going to be critical as we continue to develop the momentum behind this operation and continue to deter and suppress piracy on the high seas. Thank you. ciidamada dul saaran markabka ayaa adeegsada diyaaradaha helikobtarka iyo kuwa aan duuliyaha wadin iyo doomaha dheereeya haddii ay dhacdo khatar la xiriirta burcadbadeeda waxaana saraakiisha Midowga Yurub uu saxaafadda u soo bandhigay muuqaal ka turjumayay muddadii ay howlgalka wadeen Zainab Abuukar VOA Muqdisho